intaas ay tahay horta dadkii dhintaa lagu naxariisto dhammaantood reerihii ay ka dhinteena samri iimaan ilaahay ka siiyo kabacdi waxaan ducaynayaa dadkeena kale ee Soomaaliyeed ee dhibaatada haysato magaalada Xamar iyo in iloogu wadad walaalaheena Allah yarxamo wixii dhintana uu dhintay Allah u naxariisto inta kalena ilaahay naxariis isku soo duwo nabadgeliyana ilaahay dadka muslimka dhammaantood ilaahay ka yeelo dad kasto muslimaba ana hadaba war wala soo dhameeyay se waxaan ku dhahaata wariba xusuusan waxaan la hadlayaa waa ragga sababta ay tahay internetka kolkii la furay iyo website-ka in wax lagu kala kordhistaa loo furay laakiin waxaad moodaa in ay loo furay ay ma government-ka waa la canaan karaa dadka waa la canaan karaa waxba la isku sheegi karaa waxba la isku ogeysiin karaa ay waa shay cad qaniima weeyaan haddaba waxaan filayaa raggii anu dee waa igu caabinaan laakiin caawa way iga sii ma murtidii baa tagtay ma raganimada baa yeelatay maxaa dhacay waa wax la yaab leh sababta ay tahay rag baa maamuli jiray rag baa hor socon jiray laakiin waxaad moodaa imaka inay dumar hor socdaan kolka anaka waa nagu ceeb sababta ay tahay raggu waa walaalahayo waa abahayo waa carruurtan dhalay weeyaan kolka anagu hooyooyina raggii kolkay ay tamaan maxaad u malayseen dumarkiina xumaan waxaan ahaynay gelinaysaan ma jirto horta nin walba wuxuu samaynayo isaga u taala laakiin ilaahayna ka yaaba ayda iska joojiya waa dad xumo waa lagu kala tagaa waana lagu kala dheeraadaa wax murtile oo la isku weysiinayo canaan haday noqoto hadii wargelin waa in walba fikrad buu keenaa fikradda waa la isku geeyaa waxa muhiimka laga baxaa laakiin aydu waa cad qonimo ilaahayna ka yaaba ilaahayna u noqda wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh